السلام عليكم maanta way taariikhdu tahay 7 bisha labaad ee sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda Mareykanku u soo magacawday Soomaaliya mudane Larry Androy ugu horeynba danjiraha cusub mudane Larry Androy ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo dhambaal uu ka waday madaxweynaha Mareykanka mudane Joe Biden waxa sidoo kale danjiruhu halkaas ku soo bandhigay qorshihiisa ku aadan kor u qaadida iyo dardargelinta xiriirka labada dal ee dhinacyada diblomaasiyadda iyo wax wada qabsiga labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjire Androy ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaan kor u qaadida iskaashiga dhaqaale iyo kan amni la dagaalanka argagixisada gargaarka bini'aadanimo iyo horumarka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha ay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ka xaqiijiyeen dhinacyada amniga dib u dhiska ciidanka dib u habeynta hay'adaha maaliyadda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo deyn cafinta iyo ugu dambeyn halka ay marayaan doorashooyinka heer federaal ee dalka ka socda ugu dambeynna waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ugu hambaliyay danjiraha cusub mas'uuliyadan loo igmaday isaga oo u xaqiijiyay in dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ay ku garab istaagi doonto hawshan diblomaasiyadeed ee loo igmaday aad baad u mahadsantihiin